بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرحمن بن العوالة وكما عدير أمان ودير الجريناري بدرولك وحان والله الصوماليات سبورتك الصوماليات السلام يا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الرجال هذا ما دام أنت كلا صوت عني برنامجكي وأنا وقت وري لسه سعسين وصوت عني وعن الله يا مركب بجر هذا ما دام صوت عني وقت دنبنا عمارتي إنه نقطي ما دام أرمي بدنا أرمي أن فلقين أنا قاعدين وفرني هاي برنامجكم أنت أيام ده كقاعدين أنا فرايو waxaan u qaybsami doonaa sababtii waxaan ugu khasbay inaan sameeyno oo saacada oo ka hadli doono caqabaha noor yaala iyo wax loo baahan yahay oo cali oo ka hadli doono iyo majabo oo soo ganaanin doono walaalayaal waxaan u baahanahay xigmadiina oo u baahanahay ID-na oo u baahanahay ereyadiina iyo maaragtay iyo waxaan ugu soo kordhinaysiin waxaan u baahanahay wax naga wada dhaxeeyo oo anaga wada leenahay dad kaliya aysan lahayn marka walaalayaal mar labaadna waa idinka raali gelinayaa mar saddexaadna waa idinka raali gelinayaa daahitaanka soo daanay raali ahaada barnaamijku waa furan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Saadiq assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا سلامي Somali Legends ويلل يقبلوا دلنيرو وضيال كلين محنكو سلامي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي رادا صادق فارح دعالي وعن كميد أهاي عيرتو دي وقودا دي يريد يقودي شي نادي مطبعة أما MBC وبسيدو يقانو عيارها waxaan ku soo biiray sanadkii 86 ilaa iyo dhamaadkii 90 intaas daan salaanta ugu baxo walaalaha meesha ku jiro waxaan ka mid ahay dadkii ama groupkan ama walaalahan isku keenay ayaan ka mid ahay waxaan rabaa oo kaliya inaan ka hadlo hal qodobkaas oo ah سؤال سيدو ويدينيسان كلين تاس أو محي ولا لهان إسكوكين وعين إسكوكين كانين تاس دان كهدلو وحاجرتو أرين وحنون بدنت أو نصو مرتي أرين تاس نحي كود عليه عيارتوي صوماليات مرنا هاي قرن مرنا ديلي قول مرنا وديلي كوحا ووين كبدا عكتي سومالي عيارتوغاس وحو هاي عبي حاجي أبوكر الله يا رحم الراحمين عبي هتان كهدلو وحير نرشيسا أما هيستوريسا دان وحير كهدلو عبي وحو هاي عيارتوغ كيميت وسو ديلي قبل كهيران وحو نسو ديلي كبدا عكتا يكبد كولي إيرلي سيديت ميدي وقتي أهيد أما تضغطني سجالك أيوة حق عادتي سيديت ميدي نادي مطبعة قرنكا إلا يحلقي ودن بي سيديتني سجالك أيوة عياري عبي وحو هاي also عيارتوي قرن ولي لقرنك سوماليا مرر بدن وراعي سفر بدن عبي وحو كلو هاي من فاميلي wuxuu guursaday saddex xaas wuxuuna dhalay ilmo ma sha Allah oo aad u badan ilaa iyo 15 iyo 16 sidaan qiyaasahay sidoo ii sheegay markii ciyaaraha uu ka fadhiistay abay waxa jira waxaan rabaa inaan idin wadaago history uu nooga hadlay ama asaga iga hadlay ama walaalkii Maxamed Majabe uu ka hadlay taas oo ahayd inay ciyaar qaran u baxeen ay u aadeen wadanka Uganda markay wadanka Uganda u aadeen ayaa waxa jira inuu cabay ku gaaray dhaawacaas uu ka gaaray madaxa waa 85 ciyaartooy badan oo waqtigaas dheelaysay oo ku jiraan sida Muridi Allahu musta'an Majabe Said Hero group badan oo waqtigaas la ciyaaray cabay ku jiraan meesha وأنا حسوسا كران dhaawacaas gaaray cabay wuu ku dheelay ilaa iyo
89 iyo early 90. dhaawacaas wuxuu ka gaaray madaxa oo neerbayaasha ahay. kadib Abiy wuxuu iska ahay nin sidiisa kale iska xoogsada ama ku shaqeysta farsamada sida maaragtay engineer ahay. marka farsamada ahay sida engineerada iyo sida maaragtay renovationka guryaha loo sameeyo. Abiy markii ka fadhiistay ciyaaraha waxaa ku dhacay xanuun ku bilowday oo tartiib ugu bilowday ilaa heer uu gaaro wuxuuna ka bilowday hal lug kadibna waxay gaartay lugti kale ilaa inta hoose dhan paralyze ka noqdo. waxaa dhacday inuu xiriir lahaay Maxamed Xuseen Majabe uu iswici jireen. kadib ayuu xanuunkiisa kala hadlay. Maxamed Xuseen markuu kala hadlay xanuunkiisa ayaa waxaa jira inuu Maxamed Xuseen la soo xiriiray maadaama isku magaalo aan deganin ama isku wadan aan deganahay, magaalo ahaan ma degan laakiin isku wadan aan deganahay la soo xiriiray oo yiri ninkii anigu arrintaas haysato. markaan la wada xiriirnay oo Abiy aan wacnayna waxaa noo cadaatay in uusan sariirta ka kici karin, uu yahay nin saxarada iyo kaadida sariirta loogu qaaday. waa ninkii shaqaysanayay, xoogga lahaay, kubadda dheelayay, dhaawacii ka gaaray, madaxa ka gaaray. takhaatiir badanaa la geeyey, wax way ka qaban waayeen. waxaana la gaaray go-aan ah in waddanka aan wax loogu qaban karin. markii aan la xiriirnay waxaan weydiinay intii uu maray takhaatiirtii waraaqihii noo soo diray. takhaatiir kalaan tusnay, waxay noo sheegeen inaysan waxba lagu qaban karin waddanka. kadib waxaan go-aansanay in aan wax u sameyno. waxaan ka bilownay waddankii. waxaan la xiriirnay ciyaartooydii hore sida Abuubakar Islaaw iyo Nuur Amiin. waxay la xiriireen dadkii aan isdhihi karnay maaragtay waa macquul oo dowladday ku jiraan wax way qaban karaan. marka aan wacnay waxaa kamid ahay dadkaas Allah u naxariisto ninka la dhaho engineer Giriso, Allah u naxariisto aadan Moogaleyn alayhi raxma oo isagana ahay markaas xildhibaan. waxaan kaloo la xiriirnay Khadiija oo ayadan ahayd wasiirka isboortiga ilaa hadda ah. waxaan kaloo la xiriirnay Ducaale. kadib waxay noo ballan qaadeen codsiyaal aad u badan. ay leeyihiin waxaan sameynayna laakiin idinka wax la imaada. markaan isku noqonay annaka waxaan ku nirayay nimankii jooga xamar sida Abuubakar Islaaw in ay ayaga xooga saaraan arrinta xamar, annagana aan dibadda u weydiino walaalaha maqan wixii aan usoo aroori karno. waraaqihii uu noo soo diray Abiy oo taktarkiisa ahay waxaa jirtay gabar walaashiis Maxamed Xuseen ahayd oo joogtay India oo Maxamed Xuseen aabihiis meesha keentay. ayadan waraaqihii u dirnay. waxay noo soo sheegtay in taktarka uu ku yiri ninkaan qalitaan u baahan yahay, qalitaanka u baahan yahay ay qaadan karto qiyaas ahaan 15,000 ilaa 16,000. waxaan goosanay inaan $20,000 u aruurino. xagga Soomaaliya wixii ka yimaadana aan ku darno. waxaa dhacday shaqadii ayaan bilownay. waxaan la xiriirnay walaalaheen kale sida Amaan oo joogo Mareykanka. waxaan la xiriirnay Ali Xuseen oo joogo Australia iyo Zakariya oo joogo waddanka Ingiriiska. waxaana isku xil saarnay in aan maaragtay qof walba wuxuu soo aruurin karo oo soo aruuriyo ummadda isboortiga iyo cid alaali ciddii maaragtay isboorti danaynaysa ama Soomaalinimo wax u qabanaysa in la soo aruuriyo. kadib ayaa waxaa soo baxay video YouTube-ka ah inaad aragteen waa dhici kartaa, kaas oo ahay in looga hadlayo Abiy dhibaatadiisa. si fiican ayuu videogaas noo caawinay. dad badan oo fiirsaday ama dad badan oo maaragtay dhageystay oo arkay way ka qiiroodeen. kadib waxaan bilaabnay inaan lacagtii aruurino. lacagtii aruuriskeedii waxay nagu qaadatay, waxaan qabsanay marka ugu horeyso 3 bil ilaa 6 bil inaan ku aruurino. laakiin nasiib daro waxay nagu qaadatay sanad ilaa sanadii bar. ayadoo intaas nala soo kulmayeen caqabado aad u adag oo ah maaragtay dhinaca Abiy maaragtay familkiisa. mana rabo inaan hadda detailskaasi gudaha u galo maxaa yeelay waa fahmi kartiin qofka markii uu xaasas badan qabo waxaa yimid challenge ah in maaragtay meesha uu ku noolaanayo iyo cid haynayso inay imaato challenge. waxaan gaarnay inaan u qorno familiyadii aan u qorno mushaar oo bil ah aan u dirno oo dhahno maaragtay meesha u ron ama familka u ron ninka inuu la joogo. laakiin ma aysan dhicin. waxaa dhacday in Abiy anagu xamarku og
inuu naga soo wacay buulo burti oo la yiri qur'aan la saaraa meesha la geynaa ninkaan ma haayo cudur kale ma haayo waxa haayo maaragtay sixir haayo kana haayo something like that ma rabo inaan details badan galo laakiin waxay nagu qaadatay celiskiisa inaan diyaarad usoo qaadno waa fahmi kartaan marka hore baawura lagu darafaad badan oo galay dehydration oo ku dhacay oo ku xanuunsaday meesha kadib waxaan u qasabtay inaan diyaarad soo saarno oo keeno lacagtaan diyaaradda ka saarayno waxay noqotay lacagtii aan aruurin inaan dib ugu celino markii xamar la keenay sidoo kale oo ku xanuunsaday 3 ilaa 4 mar oo kale ayaan isbitaal geeyay oon ku daaweyn oo mar walbana uu ku jirayay at least 2-3 weeks waxaa dhacday in Cabey markii aan soo dhawaanay inaan passport u sameynay asaga iyo gabadhii ugu fiicneed oo maasha Allah oo taker gareynaysa oo meel walba u raacaysa inaan dhahna ayada wadaysa oo anaga go'aanka aan qaadano passportada u sameyno markaan isku dayno inaan visa u xareeno Cabey in uu dhintay oo tii alle u timid alla ya raxmaan raxiimiin asagoo u dhintay markaas dhaawici gaaray wuxuu ka go'ay raashinka wuxuu ka go'ay maaragtay wax walba uu cunay ninkii awoodeen oo xoogaas lahay wuxuu noqday 120 kiilo maxaa yeelay annagana ma awoodin inaan lacagtii kaamilno oo hal mar aan wada aruurino waa fahmi kartaan 3 bil ilaa 6 bil aan qabsanay laakiin waxay nagu qaadatay inaan lacagtaas isku keeno sanad iyo 2 bil ilaa sanad iyo 3 bil udintii walaalkeen wixii ugu horeeyay aan sameeyay waxay ahayd in aan walaalkeen si sharaf leh u duubno maadaama ay noqotay in aan soo wadi weyno oo aan daaweyno oo Ilaahay naga jeclaaday markii aan duubnay wixii ku xiga aan sameeyay waxay ahayd in aan ka dhiibno wixii deyn lagu lahaay oo dad qofka markuu magaalo degan yahay wuxuu qaadan karaa deyman badan uusan ogeyn wuxuu ka dardaarmay iyo wixii lagu lahaay oo dhan deyn ayaan ka dhiibnay lacagta intii soo hartayna waxaan u qaybinay familkii oo Cabey ka tegay oo dhaxalxaan aan u siinay kadibna waxaa kaloo aan rabaa in aan oga mahad celiyo walaalo badan waxaa jiro adduunyada geesaheeda joogo oo arrintan nagala qayb galay oo sports ah oo legends ah North America joogo qaarkood Canada joogaan sida Edmonton iyo Fort Mac qaarna Ingiriiska ay joogaan qaarna Yurubta kale ay joogaan ayagana isxil qaame oo lacagta naga soo aruuriyay laakiin aan magacyadooda hadda inta ku soo koobi karin ayagana waxaan leeyahay jazakallahu khair intii lacagtaas ay nagala qayb gashay nagala dhiibtay ama xoogooda gelisay ama lacagta dhiibtana oo sport ahaayeenna waa maad celinayna ay intaan sport ahayn marka walaalahay waa fahmi kartaan waxaan isku kin wacnay maanta qolkaan aan isku kinkeen waxaa ku jirto ilaa iyo 150 qofood haddii maalintaas aan haysan lahayn 150 qof oo meesha ku jirta waxaan heli lahayn jaanis aan ku qaadno Cabey iyo intii kale xanuunsaneed oo Soomaali ahayd oo sport ahayd oo u dhimatay dareer la'aan raashin la'aan caafimaad la'aan 150 qofood imagine qofkiiba $100 hadii laga qaado waa 15,000 daad 15,000 waxaan geyn karnay inaan India geeyno Turkey geeyno ee loo balan qaaday wali in vision loo soo saaro marka waxa xanuunka na gaarsiiyay oo aan ka seexan weyn waxay tahay dhibaatada ugu weyn ay tahay in qof dambe oo magac sport sheegta wuxuu rabaa soo dhigo Soomaaliya joogo in aysan ku dhicin dhibka ku dhacay walaalkeen iyo walaalaheen kale oo badan jiro waxa laga yaabaa story-ga anaga nagu dhacday in dad caaw qolkan ku jira ay ku dhacday laakiin la aamusay waxaa kamid ah haddaan tusaale ahaan usoo qaato Cabdalla Dheere waa wada taqaanaan oo qaranka Soomaaliya u dheelay Jini u dheelay basket ah wuxuu dhintay sokor fara laga gooy suula laga gooy luga laga gooy ilaa uu dhinto waxaa kamid ah Cali Muuse ma soo koobi karo marka waxaa ay nala noqotay walaalaheen aan u aragnay dhibaatadaaniiti inaan xalin karno oon ku xalin karnana anagoona cid kale aan u baahan inaan
isku keenno bahda isboortiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan uma furin dan anaga leenahay uma furin wax kale laakiin waxa ugu muhiimsan oo isku keenidan aan isku keenno waxay tahay in aan dadkaas walaalaheen ah oo maanta naga dhibaatada badan oo naga xanuunka badan oo dagaalka 30 sano ku soo socday dhibka ku jiro oo ilmahooda u la waxay cunaan maanta cunug haduu ku jiro daawo aan u haysanin cid oosan wacdo oosan aqoon in aan wax u qabano oo garab aan istaagno haddaan maanta garab istaagin bari anagana la weydiinaa aakhiro ilaahi waan weydiinaa wuxuuna leeyahay maxaad wax ugu qaban weyseen walaalka waxaan ku midoobnay sport manihin isku jilib manihin isku qabiil manihin isku reer manihin isku ma aragtay wax kale neemid ay dadka isugu yimaadeen waxaan isugu nimid sport qofkaas iyo annaga maanta ilaahay waa simannahay alxamdulillah inteenan meesha ku jirto qolka waxaa joogtaan waddan nabad leh caafimaad leh raashin leh wax walba leh marka ilaahay wuu awoodaa inta aa haysato inuu qofkaas kale maanta baahan aan haysan inuu sii u awoodaa laakiin waxay annaga nagu tahay imtixaan annaga waxay nagu tahay imtixaan beri waan la weydiinaa waxaan ku walaalownay sport dadkan meesha isugu keenay qof walba maskaxdaada ka shaqeysii kulligiin waxaan meesha isugu keenay cid kale ma aan soo raadin waxaan soo raadinay yaa sporti dheelay basket ha noqdo orod ha noqdo soccer ha noqdo tennis ha noqdo yaa dheel aan isugu nimid marka haddii yaa dheel aan wax isugu qabano oon ku walaalowno oon ku heshiino oo aqligeena iyo maskaxdeena aan soo celino wallahi waxaan badbaadin karnaa qof walbo oo dhibaato hayso oo sporti ah kadib aan waxa kale oo anaga aan u baahanahay as sport iyo wixii naga qaldan aan soo jeedin laakiin muhiimadda ugu weyn aan isku keenay anaga waxay tahay xanuunkii ama dhibkii naga qabsaday waa fahmi kartaan hal san iyo bar dad lacag aruurinayay oo isku keena markaan xoogaa keeno oo 12 kun aan gaarno lacagtii waa kala soconaysaa hadalkii aan ku noqday laakiin maanta haddaan intaan meel ku wada haysan lahayn waxaan dhihi lahayn haye hebel qof walba meeshaas aad joogto waxaan ka rabnaa intaas cabeen uguma qaadan lahayn inaan 1 week ku daaweyno oo wuxuu u baahan yahay oo sameeyno laakiin aniga waxaan aaminsanahay dhimashada cid celin karta male qof walba maalintiisa iyo wuxuu u qoro ilaahay mara laakiin dadaalka iyo dadka isku duubnidooda wax waa bedeli karaan haddii ilaahay kula garab galo marka walaalahay hadalka yaan ku badanin mana u imaan inaan idin ma aragtay waxa iga keenay emotionalka iyo wixii aan soo arkay mana rabo qof allaale iyo intiinaan marabtaan laakiin waxaa la rabaa inaan isku xirnaano meel kastoo wada jeesano ummadda wax u qabano annagana aan iskaga warhayno meeshaan waana mahadsantihiin raalin ahaada haddii maaragtay aan hadalka badiyey ama maaragtay oo aan topic aan ka baxay laakiin waxaan idin leeyahay walaalahay garbaha aan isqabsano aqliga ha shaqeeyo maskaxda ha shaqeyso kadib wax waan qaban karnaa waxna waan badbaadin karnaa waxna waan samayn karnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نحن كسود دوينا ولكن علي حسين وكهذا اللي دونه قيبتي دنبه وبرنامجك وأنا ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولا ليال وحان ذكر السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة السلام ككدب magacaygu waa cali xuseen raggii ciyaartooydii 8-meydii naadiga badda kubadda cagta walaalayaal salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in isku imaanshaheena iyo qolkan aan maaragtay aan helnay inuu yahay mid wax badan annaga dhexdeena iyo iska warqabkeena wax badan anaa ka tari doona hadduu ilaahay yiraahdo iyo arinta ugu muhiimsan ee qolkan iyo aasaaskiisa iyo walaalaha 5 qof ee arintan soo abaabulay oo ahayd dadkii walaalaha aan ka soo tagnay shalay ciyaartooyda aan wada ahayn aan Aisho Milix ahayn inay aad maaragtay dhibaatooyin badan looga soo sheegay
oo qaarkoodna xanuuno darootood iyo iyagoo oo macnaha aad u dayacan ay dhinteen. muddooyinkan dambena social mediaha waxaa aad macnaha ugu jiray oo ugu soo kordhayay in macnaha maaragtay aad loogu diganayo walaalihii sportska ahaa kooda markaas maaragtay xoogaa dhibaataysan. marka walaalayaal ilaahay baa mahad iskale waqtiga ay qadarneed inaan annagii dib isku soo helno ayaa hadda ah. marka walaalayaal waxaan isla soo garanay raggeenii voluntariga ahaa oo 5 qof inaan macnaha aan gooyno dhaqaalaha oo annagana naga go'a maadaama qurbaha aan joogno iyo shaqooyinka iyo orodka aan ku jirno famililadii iyo maaragtay ka warqabkoodii iyo kuwii wax loo diraayey iyo waalid wax loo diraayey culaysyadii inay iska badan yihiin. marka walaalayaal waxaan isla garanay lacag $100 ah oo sanadkii ah oo noqon doonta sanad walba membership la cusboonaysiinayo haddii ilaahay yiraahdo. $100 haddii insha allah aan tirada hadda aan nahay haddaan ilaahay tala saarano annagana aan is aamino waxaa laga yaabaa 10,000 iyo ka badan inay noqoto. waxaan aaminsanahay tirada inay intaan kasii badan karto haddii qof walba oo annaga naga mid ah waxaa saaran mas-uuliyadda oo 5 qof macnaha maaragtay isxilqaamay inuu gaarsiiyo qof alla qofkii sports ahaa oo ama magaalo la degan ama uu taleefkiisa hayo si aan tirada ilaa 200, 300, 400 aan u gaarno. marka 200 haddaan gaarno waa 20,000, 300 marka tirada saasay u soconaysaa. waana haddaan ilaahay tala saarano waa lacag fiican oo walaalaheen wax u tari karta kana bixin karta culayska iyo cariiriga annagana na farxad gelinaysa. si marka arrintaas ay macnaha u dhawowdo ay u joogtoodo alxamdulilah waxaan soo helnay wiilal dhalinyaro ah oo sportska jecel oo noo sameynaya app ama website oo aan ku midaysannahay oo aan taariikhdeennii xitaa ku aruursan karno oo naadiyadii aan u wada ciyaari jirnay kulligood naadi loo gelin doono haddii ilaahay yiraahdo. ciyaartooy walba taariikhda inta hadda aan hayno saa ka warqabtaan sida waddanka aan uga soo tagnay taariikhda way sii baxaysaa. intii dhimatay allah u naxariisto. waa ogtihiin bilihii lasoo dhaafay ilaa sanadka hore inta macnaha sportska magac ku lahayd oo ilaahay uu naga jeclaaday oo dhimatay ilaaha wada naxariisto. marka walaalayaal taariikhda waa muhiim. marka appkaas wuxuu leeyahay notification uu leeyahay oo qof walba soo xasuusin doono cusboonaysiintii in waqtiga cusboonaysiinta la joogo. marka walaalayaal $100 insha allah annagana culays naguma ahaan. dad badan baa laga yaabaa oo odayaal ah oo gruubka qolkooda jira inay dhahaan $100 xumaaha laga kordhiyo. laakiin bal marka hore aan istijaabino $100 waxaan waa wax sanadla ah insha allah. kadibna haddii ilaahay yiraahdo meeshaasaan maaragta maamul odayaal baa nagu jira inaan odayaashii markaas iyaga marjac noo noqdaanoo ay Soomaaliya guddi ka sameeyaan annaga iyagii aan maaragta la shaqeyno guddi kale ay doortaan insha allah haddii ilaahay yiraahdo tiradina aan sii kororno oo wiilal iyo gabdho iyo maaragta kulli qof walba intuu gaarsiin kara aan gaarsiino. walaalayaal marka aada u mahadsantihiin. ilaahay waxaan ka baryayaa inteena badan hadda qurbahan degannahay culaysyo badanaa jiro. marka ilaahay caruurta iyo familada ilaahay nooga shartiro diintooda kuwa ku dhiga ilaahay nooga dhigo culeysyada qurbaha jira dhulka gaalada ilaahay nooga badbaadiyo. insha allah intii dhimateen allah u naxariisto. kuweena Soomaaliya joogan ilaahay culayska iyo cariiriga ka qaado. إن شاء الله ولا لي روح إذن الله مرلبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ريال وحال كان إنك لحظة الله ومحمد حسين فارح مجبئ إن كوحدة مطبعة قرنكا بدأ عكتا
ama MBC Club qofba siduu u yaqaano. marka ugu horeysa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa ilaaha maanta noo sahlay in halkaan qolkaan oy almost ku jirto maarkino yani inta ku jirtay inta maaragtay dibadda joogto oo laakiin qolka go'aansatay in wax walba ka soo baxay diyaar u yihiin almost 130 qofood ay gaarayaan. إله نو سورتقليي نو فذيي الحمد لله رب العالمين وحواي إله أوديسي كو أهاته إله سأيام هاتسكاله سيدو كاله وحان هل كان جعلها هنا ومهد عليو ولا لها إلهي غير أجري حسنات فربنا كسيو وقتك فربنا يجهد فربنا كبحيي إني سورتقليان in intaan oo walaalo ah oo isjecel inay meeshan iskugu keenaan. walaalahaas oo kala ah walaalkii Amaan Cabdiraxmaan Amaan Minneapolis USA, walaalkii Sakriye London UK, walaalkii Cali Xuseen Melbourne Australia, iyo walaalkii Saadiq Yare Toronto Canada. إلهي أجري حسنات بدن حين كسيو ميزان كينا آخرنا حين كودرو جهد قاسي ذلك أصعب حسين سيدو قال وحال كان أد وقم حد علينا يا ولا لها يعني ماشان كجرة يعني أو مارتي رنتي ولا لا أنا أد وجعلها يعني codsigeeni iyo yani soo dhaweynteeni iyo barnaamijkii aan ku casuunana maarta naga aqbalay runtii si walaaltinimo farxad ku jirto runtii qof walba wali ma jiro qof aan wacay oo runtii aan aad ugu farxay markaan barnaamijka u sheegay. marka walaalaha aad u mahadsantihiin sida aan nooga aqbasheen codsigeeni. haddii aan soo noqdo arinta aan barnaamijka aan wadno aniga kulli waa barnaamijkii waxaan u maleynayaa inaad ka dherigsantihiin. wax yar aan waxaan rabaa inaan xoogaa yar maaragtay just dul maro barnaamijka siduu kusoo dhacay. yani walaalkeen Saadiqa maasha allah amaano noo furay muxuu ahaayey Saadiqo maaragtay maxaa ahay ka hadlay barnaamijka يعني وحن نوكل اللي في يعني معرفة برنامج كان قابلنا هي وحي عن معرفة إسلا عرقني برنامج كان إسلا عرقنا وإسلا عن سنة وعلي حسين ومعرفة نوتة فتري مرة بينا كواس دي بقول نقضوه أكدر سنتين بس وحير أو قلانو ده عن جعلها أنا كدر صدو إن مركو ورثة ولا ريال إن وأكتهن أرنتان نوكل اللي في وحي أرنتي ولكن عبي حاجة أبوكر أنا جاهان رنتي مال ديبو يجوجا يعني مال فوق عبي حاجة أبوكر أنا جا ولا الآن أدو جعلوا أها رنتي يعني وقت في عن أسلا سوق هذا الني I don't know لكن عيرتوي ذي كوحدة رموا وذي جعلها بس كوان صاحب أد وراها سيدا الله نحرستي علي يوسف وكل ما بيست فريند أها بس عبي حاجة أبوكر وحاوم ليس يعني دونه somehow connection إنه واحد إنه أني أسجع ونقدر حيو رنتي أد يوفقه هن وحواي ولا الهرت وحوها ما شاء الله لين very social أد maaragtay u furfuran aad u kaftan badan aad u sheeko badan laacib fiican ayuu ahaa runtii ilaahay xoog siiyey strong muxuu ahaa Brunei yaqaana yani libaxeenu ahaa runtii aan wax walba uga gambanayno yani markay dhiida gaarto aan ku gamban jirnay runtii waxaan xasuustaa markaan isaga xasuustaba
I don't know sheekooyinka iyo somehow badanaa waa iloobaa maskax malihii laakiin waxaa jira cabey waxyaabo fara badan oo somehow yani waqtiga waxaa jira baska ani asaga aan isku soo hari jirnay badanaa huludaaga oo seer jirto maaragtay marka tababarka laga yimaado xaafadaha Cabdicasiis iyo maaragtay Boondheere iyo meelahaas laga bilaabo saas asaga xaafadiisii fogeed Yaaqshiid ma ahayd talageeyo aniga huludaaga ugu dambeey jiray marka ani asaga aan isku hari jirnay يعني دريم أجرا يعني فربنا قولها رنتي ومركز إيشي جري ودي جري جاب واحد دريم جرينا أنا وصان سمعني أنا وصان نقولني أنا وصان نقولني بدن كودنا دريم ياس بدن قاركود بدن كودها وعرقني أنا عبي إنه ريال قادم إن المحوها هاي جامبيون نقولنه inaan bariga bartamaha Afrika maaragtay yani dreamyaal saas oo kala marka alxamdulillah wax waa suurta galeen kuwana ma suurta galin runtii waxa waaye Abi Xaaji Abubakar aniga meel fog iga yaala ilaahay ha u naxariisto laakiin wuu rafaaday yani geerida waa xaq waaye qof walba waa dhimana لكن ورفاضي رنتي وسلعي ورفاضي دفر بدل مر مركا رنتي يعني وحمري يعني قفل بواد منايا لكن أدو رفاض رنتي وسلعي والله أنا دارتي وسلعي يعني دبعتوين فربنا مرة قاركود كده تلاس كده ميد أو كلا أسو مارتي ميد مش كل نقضي دمان أو نولين هدلي كنا الله سوق هذا من التامس هاد مالو اللوبي بركائن إلى كرجينا إن إسن qof kala aqaano ama qof walaal ah ama qof walaal ah oo bahweynta sportiga in taas oo kale ay qabsan maantaan runtii yani ugu farxad badan aan isleeyahay ilaahay waa suurta gelinaya hamigaas aad jeceshahay sababtoo ah intaan oo walaalaha maanta meesha ku jirta kaliya ay u filan I know inay bahweynta sportiga numberkooda inuu aad u badan yahay bal inteenaan kaliya maanta meesha ku jirta haddaan midowno oon hal noqonno oon gacnaha isqabsanno waa hubaal inaan qof dambe oo maxaa ahay haweenta sport kama inuu Soomaali ku dhibaatoonin I'm sure markii nabarkeena waxtarkeena wax walbaan qaban karnaa marka walaalkeen wuu rafaaday marka taas waa taas abey برنامجك هذا أصلا نقولنا الحمد لله برنامجك وحواي أنتي استوى علىها قشيين ما بدنا وحلس وقف علس كوا معها أنتي يعني قفل الدون كيسي واسكارتي نلش لبعت ديدا يعني ولا نو حريرة والدا نو حريرة معها فاميليا نو حريرة صاحبة نو حريرة لكن بهوينت سبورتيغا oo maxaa ahay walaalahaaga ah $100 baryeer wax weyn maaha wax weynina ayaga u qabanaysaa marka ilaahay qeyrasi walaalaha barnaamijkaas haday saas ku soo guuleeyeen waa perfect waay wax yar oo culeysna lagu ahayn qof walba qof ay culeys ku tahay uu si jirin $100 baryeer لكن wax weyn runtii u qabanaya walaalaheen hadii maaragtay si fiican loogu qoondeeyo si fiican loogu qorsheeyo runtii wax weyn u qabanaya marka taasna inaan biidnillaahi kariim si fudud oo dhaqso ku jiro inaan arintaas maaragtay u afjarno aan u bilaawno runtii waxa waaye waa ka daahan walaalaheen waqti fara badan قادتي
afartan sano ku dhowaad inaan maaragtay aan dib aanan u fiirin. marka maanta waxaan jecelahay walaalaha meeshaan ku jira 130 ah inay go-aan adag qaataan arrinta aynii soo bandhignay sida ugu dhaqsaha badan aan waqti lagu lumin, waqti hore nooga soo lumay. ودون وانا انا محاها وقت كارلو منه كويكلي ان مارت go-aan la gaaro especially tan dhaqaalaha aas-aaskii ah meeshaan waxaa waaye arrin qayr badan ayaan iskugu nimid intaan isku kaaya keentay nothing else. marka ilaahan ka rajeynaa in aysan qof kale aqaano ama qof walaal ah oo bahweynta isboortiga inay taasoo kale aysan qabsan. maantaanan runtii yani ugu farxad badanahay aan isleeyahay ilaahay waa suurtagelinayaa hamigaas aad jeceshahay sababtoo ah intaan oo walaalaha maanta meesha ku jirta keliya ay u filan. I know inay bahweynta isboortiga nambarkooda inuu aad u badan yahay, bal inteenaan keliya maanta meesha ku jirta haddaan midowno oon hal noqonno oon gacnaha isqabsanno waa hubaal inaan qof dambe oo maxaa ahay bahweynta isboortiga kamid inuusan Soomaali ku dhibaatoonin. I'm sure markii nambarkeenna waxtarkeenna wax walbaan qaban karnaa. marka walaalkay wuu rafaaday. marka taas waa taas cabey barnaamijka haddaan usoo noqono alxamdulilah barnaamijka waxaa waaye runtii sida walaalaha ay qorsheeyeen ma dhib badna wax culus oo qof culays ku ah maaha. runtii waa yani qof walba adduunkiisa iyo waa iska aragtay nolosha dhibaatadeeda yani walaalaa nugu xariira, waalidaa nugu xariira, maxaa ahay familiyaa nugu xariira, saaxiibaa nugu xariira. laakiin bahweynta isboortiga oo maxaa ahay walaalahaaga ah $100 baryeer wax weyn maaha wax weynayna ayaga u qabanaysaa. marka ilaahay khayr ha siiyo walaalaha barnaamijkaas hadday saas kusoo gunaadeen waa perfect waaye. wax yar oo culaysna nagu ahayn qof walba qofay culays ku tahay uusan jirin $100 baryeer, laakiin wax weyn runtii u qabanaya walaalaheen haddii maaragtay si fiican loogu qoondeeyo, si fiican loogu qorsheeyo, runtii wax weyn u qabanaya. marka taasna inaan biidnillaahi alkariim si fudud oo dhaqso ku jiro inaan arrintaas maaragtay u afjarno aan u bilaabno. runtii waxaa waaye waa ka daahna walaalaheen waqti fara badan ee qaadatay 40 sano ku dhowaad inaan maaragtay aan dib aanan u fiirin. marka maanta waxaan jecelahay walaalaha meeshaan ku jira 130 ah inay go-aan adag qaataan arrinta aynii soo bandhignay sida ugu dhaqsaha badan aan waqti lagu lumin, waqti hore nooga soo lumay. ودون وانا انا محاها وقت كارلو منه كويكلي ان مارت go-aan la gaaro especially tan dhaqaalaha aas-aaskii ah meeshaan waxaa waaye arrin qayr badan ayaan iskugu nimid intaan isku kaaya keentay nothing else. waxaa isku kaaya keenay waa arrin ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala, acmaasha ilaahay subxaana wa tacaala uu aad ku jecel yahay ka mid ah taasoo ah in aan farxad gelino walaalaheen. xadiis saxiixa wuxuu leeyahay ilaahay acmaasha uu u jecel yahay waxaa ka mid ah in qofka muslimka ah walaalkiis kale oo muslimka ah uu qalbi uu farxad geliyo, uu murugo ka qaado, uu aad u jecel. يعني markaa aragtay barnaamijkeenana waxaa waaye all markaa fiirsid waa arrintaas ku saabsan yahay inaan walaalaheen murugada iyo dhibaatada iyo jirada iyo dhaqaale xumada iyo yani farxaddii dhammayd ay ka tagtay inaan ka farxino. taasna anaga farxadii noo tahay runtii anaga ku farxeena laftigeena markaan walaalaheena faraxsan aan aragno. marka insha allah inaan walaalaheen farxadda ka qayb qaadano yani
barnaamijkeenana meenkaas aan iskugu nimid aan suurto gelino si qalbi furan qof walba qalbigiisa furo arrintaas ma arkino aan si dhaqso leh go-aan uga gaarno qof walba in ka baldhaysis maaragtay inuu go-aan ma arkino arrintan hadal iyo waxaa waaye hadal badan iyo howl yar ay soomaalida runtii taqaanaa waxaan rabnaa yacni hadal yar iyo howl badan waxaan rabnaa action inaan bilaabno nin walba oo naga mida inteennana waaye hadda qolka ku jirta inta ugu muhiimsan oo arrintan wada waxaan ogahay bahweynta sportiga aad u fara badan yihiin numberkooda I don't know laakiin waxaa waaye number runtii fara badan aad u badan yihiin an insha allahu waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay kulligood soo wada galaan meeshaan midkii dhibaataysan iyo midkii muxuu ahaay aan dhibaataysanba taasna waxaa waaye inteennaan hadda meesha ku jirta usal ah maanta haddaan isku raacno arrintan miiska aan saarno aan actionna dadka tusino yaa lacagtii nin walba uu muxuu ahaayey wixii qorshaha waa isla samayn karnaa qorshayaalka way badan yihiin guddiyaan dooranayna odayaal ah muxuu ahaayey guddigaas odayaalkaha wax walba iyo balaanka iyo qorshaha iyo sida ay maaragta ummaddii kula xiriiri kareen sidoo kale guddi kale oo muxuu ahay Soomaaliya jooga oo dadka Soomaaliya diib every ciyaartooy meel kastuu jooga arrintiisa u soo gudbiya labadaas guddi ayaa maaragtay isla xiriiri doona hal qof walbana hal u fiiri doona qof walba xaaladiisa iyo situationku yahay iyo sida loo caawin doono laakiin annaga waxaan rabnaa inaan arrintan sida ugu dhaqsaha badan leh aan u bilaawno aan miiska u soo saarno oo muxuu ahay action dadka u tusino si inta naga dambaysa hadda bahweynta sportiga waa hubaa nin walba oo maqla inuu yani inuu farxad iyo reereen uu maaragtay moogiyo wax kale isu nagu soo saacideen uu ku soo darsoomay marka sidaas awgeed maanta waxayna hortaallaa adinka inteennaan ayna hortaallaa inteennaan go-aan degdega aan qaadano wixii baraan iyo qorshe iyo sida wax u noqon doona iyo sida wax loo sameeyo sida muxuu ahay dadka loo xiriiriyay sida walaalaha muxuu ahay loo caawinayo waxa way guddiga labada guddi aan dooran doono ayaa sameeynaya laakiin anaga waxaan u baahanahay right now in registration iyo qof walba $100 oo bariyeerkii aan isku qornay oo membership ah inuu miiska soo saaro ka bacdina waxa waaye hubaal waxa ah everyone oo bahweynta sportiga adduunka Afrika ay ku jooga oo maqla inuu maxaa maqlo intee naas oo maanta actionkii bilawnay inuu qof naga harayo jirin taasna waxa waaye waa tan ugu muhiimsan ee barnaamijka wadajirkeen la ilaaliyo wadajirka in lagu dadaalo qalbiga qulubta in la isku furo in maarta dad walaalahaana shalay rooti kala goosanay sirri isla jiifay furaanada kala gashay maxaa ay isku siibaay maanta sidoo kale aan rabnaa biilaahi kariim inaan midowno ilaahay tala saarano walaalaha aan talada u dhiibana aan dooranana aan ku kalsoonaano wixii muxuu ahaayey moral iyo tala ahna aan muxuu ahaay la wadaagno the best way marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qulubteen isku furo inuu qulubteen isku soo dhaweeyo inuu iskaaga jeclaysiiyo inuu barnaamijkaana mid muxuu ahaayey يعني بهوينت سبورتيغا فرجو انو كدغو نود بهوينت سبورتيغا ما هي سومالي او دن او قبيل iyo qurun iyo groups u kala baabi'iyay wadankeeni ay u jeedeen meel walba in ilaahay farji uga dhigo aan ilaahay ka rajeenaya waana suurtagal waa hadii annaga awal bahweyn sportiyan yahay sportina nadiif uu ka ahaa qabiil iyo qurun iyo groups iyo xaasidnimo sport free uu ka ahaa ina sidii aan example u noqono ummadda Soomaaliyeed ee maanta maartay u baabaasan biidnillahi kariim waana gaari karnaa runtii haddaan maartay nin walba oo bahweynta sportiga kamida haddaan qalubteen taan isku furno aan midowno aan garbaha isqabsano aan example iyo tusaale u noqono muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed walaalaha waa hadalka ku dheeraad iga raali noqda ilaahay waxaan ka baryayaa qulubteen inuu soo diro ilaahay waxaan ka baryayaa barnaamijkan barnaamij qeyr badan oo muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed walaalaheena dhiban farji u noqda yani qulubteena isku soo dhaweeya iskaayna jeclaysiin inuu ilaahay ka dhigo mid ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ay ku dayato oo ku faraxdo oo example u noqdaan inuu ilaahay nooga dhigo
waxaa noo ballan ah in nin walba ilaahay dartiis uu arrintan qalbigiisa ugu furo, walaalkiisa u cafiyo, gacnaha aan isqabsanno, aan ku midoowno, hal aan ku noqono, hal. Then we can do lot of things. wax walba aan samayn karnaa. Yes, we can do everything. runtii I believe yani haddaan bahweynta isboortiga dhan ay meeshaan iskugu timaado ay ku midoobaan, aan maamul doorano, in wax walba aan qabsan karno. lacagtan waxba xagga intaan iskaga tuurno, waxaan awoodi karnaa dowladda federaalka, waxaan awoodi karnaa muxuu ahaay gobolka ha noqoto, yani inaan meel walba itaa odayaalkeena maamulkeena intay la hadlaan straight inaan xaqeena aan maaragta ka qaadano, aan muxuu ahaay example noqono, aan muxuu ahaay ka shaqeyno, muxuu ahaay waxyaabaha khayrka aan ka shaqeyno, waxyaabaha khayrka aan ka shaqeyno. insha Allah waxaan rajeynayaa farji inuu u noqdo barnaamijkan ummadda bahweynta isboortiga Soomaaliyeed meel kasta farxadooda iyo mideyntooda. sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, federaal iyo professionalba khayr fara badan ayaan rajeynayaa. waa walaalkiin oo in salaamaya, jazaakumullahu khayr. walaalayaal, actionka I need action aan u baahanahay kulligeen biidnillaahi kariim, sida ugu dhaqsaha badan leh go-aankana loo soo afjiro, arrintan aan isku raacno, lacagtii aan bilaawno actionkeedii si ummadoo dhan ay u wada yimaadeen. kullina way soo socdaan runtii, nin walba waxay ku xiran tahay helistiisii iyo meeshii teleefoonadoodii iyo raadintoodii. biidnillahi kariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jazaakumullahu khayr. khayr fara badan, khayr iyo maaragtay ajri xasanaad fara badan in kugu duceynaya. adduunka iyo aakhira Allah na dhowro, kulligeen awlaadeena, ehelkeena iyo qaraabadeennaba Allah noo dhowro, anagoo isjecel, anagoo muxuu ahaay isku faraxsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ahaay hana kala oofsado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.